gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta waraysi gaara siiyay shabakada wararka wanaag news waxa uu ka hadlay hadallo ka soo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo sheegay in xukuumaddu ay wada hadal la furayso xisbiyada qaranka waxaana uu sheegay gudoomiyaha Ciro in wada hadalkaasi xukuumaddu ay ku baaqday ay ogal yihiin balse ay ku xurayaan shuruudo haddii ay yihiin xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana uu yidhi beesha caalamka runtii tallaabo muhiim ah ka qaaday arrintaas waxay yihiin safiirkii dalka EU-da oo ka wakiila dhammaan beesha caalamka arrinta muddo kordhinta horena waan uga dignay go'aanka ku soo baxayna waxaan xusnay waan u cadaynay shacbiga iyo beesha caalamka inaan aqbalayn hase yeeshee maadaama xukuumadda Soomaaliland tiri arrinta waa laga wada hadlayaa waxaanu sidii caadadaynu ahaan jirtay Soomaaliland ama aqbalay in la wada hadlo inkastoo aan maqlayo warar kale oo leeyahay xukuumaddu waxay tiri go'aankaasi waa muqaddas oo la bedeli maayo muqaddas oo la bedeli maayo waa la wada hadlayaa laba isqabto maaha anagu waan ogolaanay hadduu muqaddas yahayna dee waxa wada hadal ma jiro marka anagu wax shuruudo kumaanaan xidhin hadda laakiin waxaanu diyaar u yahay haddii la wada hadlayo haddii go'aankaasiisa yahay wax laga wada hadlayaa nama muuqdaan marka aqbalaadda iyadu waxay ku xidhan tahay waxa laga wada hadlayo waxa laga wada hadlayaa waa ajende keliya oo ah muddo kordhinta ay samaysay golaha guurtida ee aan la isku waafaqsanayn haddii taa laga wada hadlayo diyaar baan u nahay haddaan intaas jirinna way soo bixi doontaa sidoo kale waxa uu gudoomiye Ciro ka hadlay dhawqa ka soo yeedhay beesha caalamka ee ku wajahan muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda talada haysa iyo golaha wakiilada beesha caalamku way yimaadeen dhammaan darafyada way la kulmeen madaxweynaha way la kulmeen waxay la kulmeen axzaabta waxay la kulmeen ururada bulshada waxay la kulmeen golaha guurtida waxaanay u socdeen arrinta khilaafka dhashay xal loo helo xukuumaddana way u soo jeediyeen in la wada hadlo markii tagayeen waa la kulanay waxay noo sheegeen in ay warbixin marka hore siinayaan dhammaan beesha caalamka gaar ahaan dalalka EU-da iyo Mareykanka iyo xulafadooda marka saddexdii galabnimo shalay ay shirka u fadhiisteen baaq baanay ka soo saareen baaq way ka soo adkaa wax leeyahay wuxuu ku boorinayay Somaliland in arrinta guurtida laga wada hadlo xal la isku waafaqsan yahayna laga soo saaro haddii aan laga soo saarin Somaliland waxay ku cadeeyeen baaqooda in dhibaato weyn ka soo gaari doonto oo ah tii aan ka digaynay in go'aan caalami ay gasho Soomaaliland Cabdiraxiin Boodi Ismaaciil shabakada wararka wanaag news magaalada Hargeysa.